السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalaha qaaliga meel walba joogtaan channelka daga daawanaysan waa Faaduma Filsan. qofka idin la hadlay waa aniga Faaduma Filsan. waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. alxamdulillahi rabbil caalamiin. walaashin Faaduma Filsan mar kale isku soo noqosho wanaagsan. soo dhawaada walaalahayga qaaliga meel walba joogtaan aad ayaa idin salaamaya. waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. asxaabay isku soo noqosho wanaagsan. bashbash iyo barwaaqo anigu waa idin fiicana idinka seetihiin aad ayaa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol meel walba joogtiinna ilaahay ha idinku ammaansado. waxaan rabaa inaan hal iyo laba ka dhaho qofka bini aadanka ah fikirkiisa horta wuu isbedeli karaa. siduu shalay wuxuu arkayay si aan ahayn maanta wax ugu arki karaa si ka duwan oo sidii shalay iyo sad hadda aad maxaa dhihi jiray maanta ay kula tahayna berri way kula ahaan kartaa. marka waxaan rabaa inaan hal iyo laba ka dhaho walaalkeen hanad ciisow markii kow uu xalliye uu soo baxay oo uu bilaabay barnaamijka fikradii uu ka dhahay iyo sida uu maanta uga laabtay balaan isla aragna horta fikirka siduu isaga uga hadlay. markii hore fikirku ka hadlay waa isla aragnay kaas mar hore ayaa ka hadlay ka dambana horta maalin hore ayaa arkay fiidiyowgan waa rabay qofka bini aadanka fikirkiisa si isku bedelo inaan mar ka soo hadlo oo micnaha qofka ma aha markaad maanta uu wax dhaho markaba inaad caydo ama aflagaadayso ama aad meel qaldan u fikirto midna ma aha. fikirkiisa qofka adiga markaa waxay kula tahay sida aadi markaa wax u arkayso markaa looga hadlaa waa say aniga ila tahay aa la dhahaa. sababtoo adiga laftirkaaga fikirkaaga maanta aad ka hadlaysidaa berri iska kaa bedeli karaa. balan horta isla aragno fiidiyowga siduu uga hadlay markan dambe kii hore waa soo wada aragnay fiidiyo hore ku jira kan dambe aan aragno fikirkiisa sida uu uga hadlay. nimayo horta macallin xalliye waxaan moodi jiray inuu yahay nin waalan laakiin markaan talooyinkiisa si fiican u qaatay oo si fiican u dhuuxaamay waxaan ogaaday inaan anigu ahay nin waalan ee asagu uusan ahayn nin waalan. macallin xalliye tan iyo intuu soo baxay waxyaabo badan baan faa'iiday dhibaato badan oo i haysatay. awal hore gorilla ahaa gorille wallaahi xataa daanyeer maan ahayn gorilla ahaa. tan iyo intuu macallin xalliye soo baxay lacago badan baan xisaabiyey dib baan isugu noqday waxyaabo badan oo firi ku dhiibi jiray baan adkeeyey. macallin xalliye waxaa aaminay inuu yahay macallin dhab ah oo ilaahay noo soo diray. macallin hadda kadib waa ku aaminsanahay sawiraantii fiidiyooyaalkii aan kaa soo dhigay oo qaladaadka ahaana hadda kadib dib baan u masaxayaa waa ka tirtirayaa bartayda aad baana kuu aaminsanahay. waxa weeye war biil baan dhiibi jira biil baan bixin jira hadda akoonkay baan dib u fiiriyey sax waan aragnay siduu uga hadlay shalay say la ahayd waa isla soo aragnay maantana say la tahay waa isla aragnay. qofka fikirkiisa wuu isbedeli karaa sidaa la ajligeeda aniga kow markuu xalliye soo baxay aan u lahaa fikirkiisa ayuu la imaaday inta xun iska reeba inta wanaagsan bas ka hadla wixii uu ku wanaagsan yahay uu sheegay wuxuu ku khaldan yahay maxaa dhahdeen waxaas waa ku khaldan tahay ma fiicna laakiin ma aha qofka bini aadanka in la aflagaadeeyo wax laga sheego la dhaho isagaa sidana isagay ku dhacday isagaa waalan isagaa maxaa dhihi jiray waxa midna ma aha. laakiin qofka fikir markuu ka hadlo waxaa dhihi kartaa walaalow macaanu ka waxan way khaldan tahay waxana way saxsan yihiin wax kasta ereyka fikir dhan oo qof la imaadana kulli ma wada khaldanaan karo kullina ma wada saxsanaan karo. inta igu raacsan isa soo muujiya anigu fikirka waxaa aaminsanahay markaa adiga siday kula tahay la inaa uga hadashid wixii khaldana iska daysid wixii saxana markaa sida saxda uga hadashid wixii khaldan adhad waxaas way khaldan yihiin micnaha aan qofka lagu aflagaadaynin fikirka ula imaado sababtoo ay fikirkaaga wuu isbedeli karaa. soomaali hore waxay u dhahday qof xooga u jeclaani nici doonidaa ma ogi xoogna ha u nicin jeclaan doontidaa war ma ogid. marka hadda hanad waa kana shalay wuxuu lahaa wuu waalan yahay wiilkan aqoonaa u leeyahay waa qof xanuunsan waa qof dhibaatada isaga kusoo dhacday marka saa la ajligeed ayaa ugu wacan stress ayaa ka keenay inuu hadalladan iyo waxan uu keeno. maantana wuxuu leeyahay fikirkiisii ayaan wax ku faa'iiday oo maxaa la dhihi jiray markii aan dib isu baadhay waxaa ogaaday qofka waalan inuusan isaga ahayn oo aniga yahay. say kula tahay bal adiga fikirkiina kasoo dhiibta. aniga waxay ila tahay fikirkaaga mar kastaba inaad sida saxda ah ee saliimka ah uga hadashid
asxaabtayda qaaliga khayr badan aa idin rajaynaya hadday tahay markii koowaad aadna soo booqata subscribe-ta noo saar haddaad horey noola joogtay aad ayaa u mahadsan tahay 100% haddaa hadda noo imaatana soo dhawow khayr badan ayaa idin rajaynaya